xaalku markan waa sii kululaaday xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliyana waxay gaartay heerkii ugu xumeed iyada oo madaxdii hore ee dalka oo mucaarada sida madaxweyne Sheekh Shariif iyo xubnihii kale ee Khayre Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo siyaasiyiintii kale ee mucaaradka ahaana ay wadaan tallaabooyin ka dhana madaxweyne Xashi Maxamuud madaxweyne hore Sheekh Shariif oo miranaayad galabnimadii maanta ayaa durba bilaabay kulamo waxaana uu la leeyahay wax garadka ay isu heebtay yihiin gaar ahaan ragga ka soo jeeda beesha Abgaal ee gacanta madaxweyne Xashi Maxamuud iskale isagoo caawa ku hoyanaya magaalada Muqdisho sida ay noo sheegeen ila waraadix xilkasa oo lagu kalsoon yahay banaanbax dhacaya waa banaanbax aan inaba caadi ahayn waxaan ku hayaa haddii alla weyne laga helo oo mowduuceenan aad ku daawan doontaan warar waaweyn oo la xiriira kulaalka siyaasadeed ee Soomaaliya sidoo kale waxaan isla eegaynaa madaxweyne Xashi Maxamuud wuxuu qorsheynayaa tallaabooyin markaas culus oo uu rabo dhinaca mucaaradka inuu u qaado iyaga oo mucaaradkuna ay iswadaan ama ay wadaan ishubayn dawladda go'aan ay soo saartay gudoomiye Muungaab wasiirka amniga ninka la yiraahdo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag taliyaha booliiska Asad Diyaano iyo laamihii ammaanka dhammaantood way hadleen waxay si cad u sheegeen in Muqdisho xilligan aysan martigelinayn banaanbax mucaarad oo rabshado abuuri kara haddaba caasimadu waxaa ka soo baxaya warar waaweyn oo iskhilaafsan iyada oo markaasi banaanbaxan ogeysiis madasha samata bixinta Soomaaliyeed galabta waray soo saareen ay ku sheegeen inay banaanbaxan uusan goornaba baaqanin Cabdikariim Xuseen Guuleed Cabdiraxmaan Odowaa Koofi iyo Cabdi Qaybdiid ayaa iyaguna jooga xaafadda Dabdamiska ee Muqdisho halkaasi waxay u tageen in bari banaanbax ay ka bilaabaan Khayre ayaa isaguna joogo Dayniile Shariifka Mirnaayo jooga sida aan hore kugu sheegay Tarbuunka ilaa Banaadir waxay u kala xiran tahay ra'iisul wasaare hore Maxamed Xuseen Rooble mucaaradku way isqaybiyeen waxaana muuqanaysa in xaalka markan uu yahay baraka male oo halkii ugu cuslayd ay xaaladdu taagan tahay مواضيعdaas oo idil ayaan soo koobayaa saaxiib soo dhawaadii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe soo tiraahdo muuqaalka like saarto saaxiibadaana u sii share gareyso waa mahadsan tahay waxaan ku bilaabayaa madaxweyne hore Sheekh Shariif oo maanta ka guuray xeyndaabka xalane ee Muqdisho isla markaana degay waqooyiga caasimadda ayaa caawa kulamo la yeelanaya durba madaxda iyo odayaasha dhaqanka beelaha mudulood gaar ahaan Abgaal waxa uu madaxweyne Sheekh Shariif kala hadlayaa banaanbaxood inuu nabad ugu dhaco siina wadaan sidoo kalena madaxweyne Xashi Maxamuud shanta maalin ee xukunka ugu harsan ay tahay waqti ku filan oo xal kula imaan karo xal ay ka keenaan haddii xal ay keenay waayaan kursiga isagu dhiig buu ku fuulay wiiro oo dhiig buu u daadiyay doorashadiisina qayb ayaan ka ahayn oo waxaan ahayn rag hal saf ku wada jira laakiin maanta mucaarad iyo muxaafid ayaan kala nahay mana jirto wax aan u turayo ama aan u aabayeelay ayuu si cad u yiri Shariif oo maanta Muqdisho hadal ka jeediyay ayaa tusaalaha nool u soo qaatay in markaasi Cabdi Qaybdiid oo kale uu ka soo qayb qaatay dagaalo badan oo dalkan ka jiray sax iyo qalad sidii ay doonaan bahan noqdeen uusan geeriyoon qof walbana maalinkiisa uu sugayo sida uu sheegay Shariif maalintaada ka hor ma geeriyoonaysid iska daaya fulaynimada u soo baxa banaanka dhacsada xaqeena ayuu si cad u yiri madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed kulamadaas ayuu odayaasha dhaqanka mudulood la leeyahay waxaana kulamadan ay ku soo aadayaan waqti xasaasi ah magaalada ciidankii ugu badnaa ayaa soo galay dawladdu waxay isku dayaysaa xakameynta dibadbaxayaashuna waxay gaarayaan 30,000 oo qof oo ilaa ay hadda si rasmi ah isku diiwaan galiyay isla markaana wacad ku maray inay ka qayb galayaan banaanbax laakiin tire intaas ka yar 12,000 ayaa la rajaynayaa 12,000 oo qof oo dibadbaxday wax yar maaha iyadoo laftirkeeda waxaa leeyahay tani waa caqabad weyn oo dawladda uga baahan xal haddaba sideebay wax noqon karaan maxaa dhici kara Mirnaayo Gubadley kilomitir 13 iyo xaafado kale oo Tarbuunka Zone K Sinai Warlaliska Dabdamiska Xerer Ruush Horseed Carwada Qaranka waa Taleex dhulkii eeneeye School Plusiya jaamacadaha Ceel Hindi Taleex suuqa la yiraahdo Bilaaja Carab Siliga Tawfiiq iyo sidoo kale halka la yiraahdo markaasi Munishibiyo oo xariyaal ku taala iyo sidoo kale waa garoonkii Munishibiyada ee caanka ahaa Buulaweekiyo oo xamarjajaba Buulagaal Jecel oo xamarjajaba Buula Daa'uud
oo degmada Shibisa oo kuwii ugu dambeeyay ee la dumiyay dadkaas oo dhan dhammaantood way soo baxayaan waxayna iskugu imaanayaan kilomitir 13 Marinaayo iyo sidoo kale deegaano kale oo dhowr ah waxa la asteeyay ilaa hadda Tarabuunka Banaadir number 4 kilomitir 13 wadada Makka al-Mukarrama oo dhan agaarka Jubba ilaa Faransa Sinai sidoo kale Daynile meelo badan oo kamid ah ay dibadbaxyadu ka dhacayaan dhammaan dibadbaxyadan waxay caqabad ku yihiin markaasi dawladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Xashi Maxamuud oo mucaaradad xog la xilligan wajahaya geesta kale gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirka amniga gudaha iyo taliyaha booliiska Soomaaliyeed ayaa goordhow shir jaraa'id wariyaasha u qabtay kulana hadlay gobolka Banaadir waxayna ka hadleen barnaamijka mucaaradku ay doonayaan in maalinta bari ah ay ku gilgilaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho duqa magaalada Xasan Maxamed Xuseen oo loo yaqaan Muungab ayaa markaasi faahfaahiyay awaamiir culus oo soo baxday isagoo oo sheegay in dawladdu fasaxday dibadbaxa laakiin ay hortagayaan ama ay ka hortagayaan in la carqaladeeyo amniga Muungab ayaa xusay in dawladdu ogoshahay in mucaaradku iyo taageerayaashooda isugu tagaan hal goob isla markaana loo qorsheeyay garoonka Engineer Riso halkaas oo lagu qaban karo isku soo bax amniguna dawladda ay sugayso barnaamijka waxaan ogolnahay in lagu qabto garoonka Engineer Riso amniga dawladda ayaa sugi doonto ma jirto qof wax fowda ah sameyn karta ayuu yiri duqa Muqdisho laakiin mucaaradku gabi ahaan batani waa diideen waxayna doonayaan magaalada gudaheeda inay ka qabtaan dibadbaxyo waaweyn waxaana laga cabsi qabaa rabshado in dibadbaxyadaasi lagu soo dhexqariyo wasiirka amniga Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa isna hadlay isagoo oo sheegay in dawlad ahaan ay ka hortagi doonaan cid kasta oo wax u dhimaysa amniga caasimadda wuxuuna ku eedeeyay mucaaradku inay qorsheynayaan inay markaasi khalqalgeliyaan xasiloonida dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ammaan laga dareemayay muddooyinkii ugu dambeeyay markii la isku daro warka gudoomiyaha gobolka Banaadir kan taliyaha booliiska iyo midka gudoomiyaha gobolka waxa gabigoodu ay ka siman yihiin in si isku mid ah ay u diidan yihiin dibadbaxa noocan oo kala ah looga soo horjeedo dawladda madaxweyne Xashi Maxamuud oo lagu eedeeyay diidmada doorashooyin markaasi hufan iyo heshiis doorasho wax ka bedel dastuur raali laga wada yahay iyo arrimo kale oo masiiriya oo ka dhaxeeya dhammaan saamilayda wadanka iyo shacabka Soomaaliyeed si kastaba xaalku wuxuu u muuqanayaa mid quusa shacabku qaarkood weyniye jabeen qaar banaanbaxay taageerayaan qaarna waxay leeyihiin nabadda iyo qaraxyada aan ka nasanay iyo nabadda aan haysano oo baasbaxayno magaalada Muqdisho ma ka dhacayaan wax dibadbaxyo ah dawladda ayaan la jirnaa ayay sacad u leeyihiin haddaba maxaa dhici kara aragtada noo reeb muuqaalka like saar siina share garee saaxiib waa mahadsantahay caawa halkan hawlkan waxaan u nimid in madaxda qaranka iyo madaxda dhaqanka iyo ururada oo halkan jooga una sheegaan waxa nimankaas ay sheegayaan oo beenta iyo propagandada qalad dalku dawladda yahay dawladda ayaana ummadda mas'uulka ah nina mas'uuliyad hayn inuu dadka u sheego waxa jirin inuu propaganda fidiyo inuu yiraahdo maaragtay banaanbaxan sameynaya banaanbaxa maanta waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka dawladdu banaanbaxa meel ay u astays meeshaas ayaa u astaysan oo la tagaya marka hadalkayga wuxuu yahay caawa shirkan waxaan u qabanay oo maamulka gobolka Banaadir uu hormuud ugu yahay shirkan oo intaano madaxa ay ka soo qayb gashay bulshada inay madaxda halkan fadhida oo bulshada indheheeda inay la hadlaan dadka odayaashii dhaqanka jooga haweenkii jooga madaxdii kala duwaneed oo maaragtay shacabka matalayo xildhibaanadii iyo senataradii jooga golihii wasiirada jooga hay'adaha ammaanka jooga sideedaba mas'uuliyadda dadka iska lahaa oo ummadda u hayaa caawa halkan jooga ummadda marka halkan waxaan annaga meeshaan madashaan aan caawa u qaban dadka in lala hadlo dadka wixii dan u ah loo sheego dalkan maanta doorashada aaday oo doorashadiisii ay sii marayeen deegaanadii kala duwan ay ka qabsoomayaan oo amniga aragteen ku tilaabsaday oo dadkii la leeyahay amni ay dawladdu sheeganaysaa
dalkan waxa lagu kala tagay amni darray ah wax amni ka weyn oo adduunyada ka jira ma jiraan marka waxa caawa la rabo oo halkan odayaasha iyo dadka aan isugu keeno bulshada in lala hadlo waayo oo la wacyi geliyo oo loo sheego oo aysan ku kadsoomin waxa la sheegayo oo magaalada laga sheegayo oo dadkaas maaragta mucaaradka ay u sheegayaan bulshada ay u sheegayaan aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhawaada hawlka weyn xarunta gobolka banaadir ku soo dhawaada wixii faahfaahina iyo wixii bulshada la hadalkeedana adinka iskala hadduu ilaahay yiraahdo caawa waxaa weliba halkaan fadhiya rag waaweyn oo maaragtay laga yaabo inaysan meelaha qaar aysan imaan jirin oo senator muuse suudi yalaxu uu ka mid yahay oo ay ka mid yihiin maaragtay odayaashii dhaqanka oo waaweynaa oo magaaladan ay ka mid yihiin marka hadda soo dhawaada insha allahu tacaala bulshada iyo adinkaan rabnaa inaan isaga kiin dhex baxno oo bulshada aad wax u sheegteen ilaahay yiraahdo la hadashin in aan codkeena ku biirino waxyaabaha dhagaheena ku soo dhacayo waa waxaanan u dulqaadan karin waayo waxaa nasiib darro ah nin maanta deganaay degmada wadajir deganaay caawa inuu kaalaan salkeeda tago waa nasiib darro oo u baahan in aan ka dhiidhinno u baahan waayo hooyooyin soomaaliyeedaan nahay dhibka hooyooyinku ku dhacaa asaayadee iyaday kortaa wiilkeediyaa dhinto dhibaatada maanta waa ogtahay qoysaska soomaaliyeed waxa u taagan hooyooyinka waayo dhallinyaradeenni waayo waxa bannaanka lagu gorgortamaayo in maanta raggi aan islahayn maaragta dalkan xilalay ka soo qabteen ma haddana xilalkii ay u taagan yihiin diyaar u yihiin inay bulshadii meeshii ay nabdooneed ukumankii oo dadka maatida meeshay joogtay inay caawa intay u guuraan xaafadahoodii sariirahooda ka soo guuraan ay yidhaahiin meeshaasaan maaragta soo baxa ee maaragta xabadaha idinka isku dhiga dadweynihii ay yidhaahiin iyo dhallinyaradii waa wax aan la yaabno taariikhda qori doonto waxaan u taaganahay haddaan dhallinyarada nahay oo dhallinyarada gobolka banaadir ugu mahad celinaya inay u soo istaageen raggan carruurtooda dibadaha geystay ee baasaboorada qaatay ee yireen ma baahnin mana soo baxayno mana soo bixi doono waa halhayska gobolka banaadir shacabkiisa ah maaragtay wixii la dhihi jiray maxaa la yidhaahdaa ciidamadii waddankan waxaan ku soo marnay in maaragtay la dhaho maxaa la dhahaa mahmahdii iga dhuntay sorry nin aan nin yuusan kuu dhaamin eed nimaan kuu rari doono yuusan kuu dhaaminin waayo saasaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed waxa maanta socdaa waa rag ismiinaynayo maxay shabaabka noo dhaamaan war ragga maanta raba inay xabad magaaladan quruxda badan leh nalalkeena shidan yahay caawa xilligaan aan meelahaan joogno habeenkii wallahi inaan magaalada laga hurdin maxayna rabaan raggaas inay maanta dhibaato noo horseedaan dowladda dhexe maandaydka iyadaa haysato golaha baarlamaanka iyo senatarada iyo maaragtay golaha wasiirada maandaydka iyaga haystaan dowladaa dhaxasha waqtigeedayna ku dhaxashaa oo la gaaro baarlamaana beteli doono wasiirada bedeli doono maxaa la dhahaa madaxda dalkana nasiibkiis ninka ku soo baxo doorasho imaada safafaan soo galayna cod qof iyo coday maraysaa bahasha dib ma u noqonayno waa qof iyo cod waa ku cibaadaysanaynaa codkayna waxaan ku faraxsannahay reer banaadir haddaan nahay inaan safaf dheerdheer galnay oo aan cod bixinay oo aan maanta goladeegaan haysano oo caawa aan intaan u taga aan dhihi karo kaala soo istaag meeshaanaan leegu heystaaye ama amnigaasaan ama waxbarashada aygasaana kaala soo istaag inaan dhihi karno ma doonayno diyaarna uma nihin in xamar dhibaato ka dhacdo gabdho ma xamaraa diyaar ka leh xamar nabad waa caasimadda dalka waa mahadsantihiin annagaa u taagan mar walba waana mahadsantihiin guddoomiye waa mahadsantahay googu shuqul waagaag maryan aad iyo aad ay u mahadsan tahay waxaanu aragnay gabdhihii soomaaliyeed